السلام عليكم. وآيات حداد أخرسته مرنا السوجرة الدعو وفرسو مروا الدعو مرنا ومجنقل إلهي آدم مجنقل سبحانه وتعالى. وآيات كلن ستي وحولبو oo adiga ku dhibaya haday tahay xanuunada Soomaalida dilooday waa aayad aan ku daaweeyay Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo caafimaad fara badan ka siiyay aayadaas anigoo joogo Mareykan baa walaalo maalinta ay qabteen waxay yiraahdeen anoo mool ku jiro soo sheekhi aayadaas sheegay matid hooyaday oo gaas la dhiban ayaa Rabbi kaga shaafiyay Hargeysa anoo joogo ayaa haddana walaalo kale maalin ugu yiraahdeen anigoo xanuunsan kici karayn shaqaysan karayn culis isaaran yahay baan aayada isku daaweeyay haddana anigoo maalin kamida meel maqaayada shaah ka qaadanayo ayaa walaal isna sidaas oo kale aayadaas iigu soo tabiyay aayadan mar hore waan sheegay mar labaadna waan sheegay mar saddexaadna waan kuu sheegay aayadan waa aayad mucjiza ah waa aayad marka walaalka uu akhrinayo qofka muslimka ee walaalka ee markuu akhrinayo waa aayad uu ka heli doono farxad caafimaad khayr oo dhan waa aayad ka xijaabi doonta xanuunada caadiga jismiga ku dhaca iyo kuwa ruuxiga ah waa aayad ku kala soo doonta shaydaanka muuqda iyo ka qarsoon aayadaas وآيات أوين إلهينا سبحانه وتعالى النبي محمد عليه السلام وكداوي وآيات إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيس منزل كجرته كمذنا آياته النبي صلى الله عليه وسلم كو أماني آيات داس وحي كجرته سورة الفلق وآخر آية هذه السورة ومن شر حاسد إذا حسد آيات وحي كل سنة مغنقل يدعو انتبو سادرتين قف إيو كبضن قف والبو أو قاس قبو صبح مركو واغو كوبريو كوبيا سوقادو قلاس بيدي رنا سوقادو ومن شر حاسد إذا حسد مركي أغير تهي تضباطا جير إلا بقل جير أخري تضباطا جير إلا بقول جير كو آخر آياداس أديقو نيجيسانيا أونو نيجيسانيا حانونك كو هيا إنو ربي كاسيبو هدي قاس تهي هدي نرفة تهي هدي ديكر تهي هدي تيرور تهي هدي مقرين تهي هدي عادك ورير تهي رقو هدي حانونك لا تهي آياداس وحاد سميسا صبح مركو واغو كوبريو آيادا كو آخري كدبنا علوش هذا فاروقة oo waxba aadan ka horeysiinin biyaha cab ahsan waxa inaad ka dhigto ilaa hal litir dadku waxay ku caafimaadeen aadka u amaanaya biyo badan ku tufo calooshaada way dhaqin wasakhda horta mar waa quraanku waa daawo midka aamina oo laazima wuxuu u yahay daawo horta kow xanuun kasta oo jirkaaga ku jiray kuwa dhaqaatiirta iyo kuwa quraanka lagu akhriyo ee maxay ahayd ishan iyo dhibtan umada haysatay sixirkii waxa la halmaana horta waa u daawo quraanka ogow cudur walba dhulka korkiisa saaran waa u daawo waa qofka aamina waa koow waxay daawo u tahay oo kale waxay kugu soo socdo oo alla kaaga xijaabi waxay daawo u tahay wax kasto adiga ku dhibin aayada ku celceli waxa aad dareentana comment nagu la wadaag haddaad tahay walaalihii hore ee aayadaas soo akhriyayna oo ilaahay ku caafiyayna waxaad samaysaa ilaahay ha ku barakeeyo nala wadaag aad iyo aad baad u mahadsan tahay allah ku sharfo u sheer gare walaalo fara badan oo la dhiban xanuunada kala gedisan wa min sharri hasidin idha hasad wa min sharri hasidin idha hasad wa min sharri hasidin idha hasad aayada ku celceli ilaa aad ka caafimaado وأنا أتكون عافي مع بإذن الله تعالى. السلام عليكم.